waa socdaal dhinaca dhulka ah oo uu kaga amabaxay magaalada Guraceel xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ku sii jeeda deegaanada Xodale iyo Oodaale halkaas oo uu ka hirgeliyay mashaariic ceel biyoodyo ah deegaanadan oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Guraceel qiyaastina 60 kiiloomitir u jira ayaa aad ugu baahnaa ceelashan qodistooda laga hirgeliyay dadka deegaanka ayaa goobjoog u sheegay in markii hore intaan ceelashan laga hirgelin deegaanadooda ay ku xirnaayeen magaalooyinka Guraceel iyo Balanballe oo masaafo ahaan aad uga fogaa lacaga badan biyaha loogu keeni jiray deegaamaha fara badan ayaa ku nool oo la koobi karin oo ilaa hadda u jirto xuduud 100 kiiloomitir xagga naga xigta ku noolaatay dabingooyi la yiraahdo dabingooyi waa lagu noolaaday marka waxaa naga dhiman motorkaas Mahad Maxamed Salaad xildhibaanka sharafi is Allah ku siiyo soo dhawaaw waa noo timid khayr Allah ku siiyo baahidanadana waa saas deegaankan shacab ballaaran degan ceel biyood ayaa laga qoday awal ceel ma laha jirin waxay u aroori jireen Balanbal iyo Guraceel iyo meel ka fog iyo meel dheer sida biyo ku imaan jireen iyo sida lagu cabi jiray iyo sida maanta yihiin farqi weyn u dhaxeeya maanta waxay la mid yihiin biyo lacag laan lagu cabo sababta ay tahay hooyadii ma taqaanaa ii sheeg $20 iyo wax la mid ah ma taqaanaa ay ku caawin dadka maanta halka deegaankan degan laakiin meelaha dheer dheer sida oo ma taqaanaa ii sheeg Garasle sida Baladhiig sida ma taqaanaa Dhagax Buur sida Balixu Dubay sida Bagaase meelahaas biyo way gaaraan waxayna ku gaaraan si ka jaban sidii hore ku tagi jireen baahida deegaan ka jirta waxay ahayd ilaa 100 kiiloomitir yaa laga soo biyo dooni jiray dadku wuu aqan jiray dadka jilicsanna waa aqan jiray dunyada ayada warkeeda iska daa abaar iska dheer iyo mid gaabanba way ahayd biyo la'aanta xaggeeda waxay kaga imaan jireen $40 biyo halka uga imaan jireen waan wareegnay 60 kiiloomitir oo Guraceel noo jiro ayaan haddana u wareegnay hadda waa dareemi kartaa 18 kiiloomitir meel $40 biyo uga yimaado 60 kiiloomitir waxay ugu wareegayaan waa laba u jibaar hadda ilaahay mahadis meela sida nadiya diilay ku idmaayo wax ugu tagaan waa jirtaa eelkan hadda waxa laga cabaa Garasle meesha uu xagga ugu xigo Garasle waxaan isleeyahay wuxuu noo jiraa aduu 100 kiiloomitir oo cagaagaynaya waa laga 100 kiiloomitir hadda wax biyo u jira waa dareemi kartaa wax ugu tagi karaan laakiin kabaabiga anagu aan ku fadhino oo markii hore ama Guraceel biyaha ugu yimaado ooda hal ahaan xisaabsan way noolaadeen alxamdulillah ku waajibtay haraadka ka jiray deegaanadan oo aad u darnaa iyo xilligan jiilaalka ah ee lagu jiray ayaa sii kordhiyay in fuustada biyaha lacaga ka badan intii hore lagu kala iibsado xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo xariga ka jiray ceelashan ayaa sheegay in haddii ay jiraan waxyaabo ka dhiman horumarinta deegaanka intii awoodiisa uu gudan doono ujeedada socdaalkiisana ay tahay oo kuurgalka baahiyaha gaarka ee ka jira deegaanadan tuulooyinkan hadda maanta aan soo marnay Xodale iyo Oodaalo maanta aan joogno ujeedadu waxay marka ceelashii meeshan aan keenay inaan bulshadii degana deegaankan aan ku soo kormeerno xaaladooda ogaano u furno ayay ahayd ujeedada aan maanta idinku nimid sidoo kalena aan daraasayno aragno baahiyaha kale jira ama waxbarashada sidii laga dhawaajiyay ama caafimaad leh ama adeegyo kale horumarineed leh inaan ayadana idin la qaybsano oo idin ka qaadno sida idin la muuqato iyo waxa ay tahay wax in laga qabto sidii markii aan idin nimid oo hore aan idinkaga ballan qaaday inaan keeni doono mashaariicdaas oo qayb ka midana hadda ay timid ayaan tan kalena idin ballan qaadaynaa insha Allah ilaahay ha noo soo dhiibo ورجينا إلى إنه نوصل دي وأنا كيني دونا ديجان إن شاء الله دي اللي يرادو عيلك الروح يسا ما أنت مركي عن صومرني وحياة كلهم كسو دري دونا ياجر إن شاء الله سي باهيها أما على سيدا صارن ديجان هذا صورنا كإيماني أيد الروح هذا عن قيب أو قاعدة النصيدي ولوجا خفيف لها أما وشقين لها صولر أو ضلبن وإماد دونا إن شاء الله موتور كليه ومش شقين دونا موتوري صولر بأو شقين دونا عيلك ودي الله ودل أو جلادو deegaanada kale ee baahiyaha kale ay ka jiraan ee aad noo sheegteen sidoo kale meel fog ilaa 120 kiiloomitir looga imaanayo baahiyo ay ka jiraan biyo la'aaneedna ayada ruuxeeda waxaan isku dayaynaa wixii aan ka qaban karno insha Allah inaan ka qabanno xildhibaanka ayaa dhinaca kale dhageystay intii uu halkaasi ku sugnaa aragtida dadka deegaanka baahiyaha gaarka oo ay qabaan iyo hadda waxyaabaha ugu daran ee xiga ceelashan loo hirgeliyay maalmaha soo socda ayuu sidoo kale furi doonaa mashaariic kale oo ceelal biyoodi ah
oo uu ka hirgeliyay dhinaca tuulooyin hoostaga degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Maxamed Salaad Cismaan, goobjoog, deegaanka Oodaale.